ku siiyeen inay qalliinka joojiso soona raacda iyaga maadaama ay iyada loo soo diray. liina inkastoo ka dhaga adeegtay dibadda ayay usoo baxday iyadoo aad uga xun in iyadoo faraha shaqadeedii kula jirta ay dadka ku caawinaysay laga soo kaxeeyey. Waxa uu ciidankii sarkaalkii watay u sheegayaa liina in iyagu ay halkan u yimaadeen keliya iyada inay badbaadiyaan, balse liina waxay ugu goodinaysaa inaanay raacayn haba yaraatee maadaama dadka goobtan ku sugan iyo iyadu ay isku mid yihiin maadaama ay nolosha soo wadaagaan waqti aad u dheer. liina way ka gows adeegtay in sarkaalkan ay ku qanacdo waxyaabaha uu soo bandhigay, balse iyadu waxay doonaysaa in dhammaan dadka goobtan ku sugan oo u badan qoyskii xilka laga turay dalka Nigeria in ay dhammaantood raacaan lana badbaadiyo. balse sarkaalku waxa uu sheegay inaan dhammaantood la wada badbaadin karin, shaqadiisana aanay ahayn ee shaqadiisa koowaad tahay sidii iyada loo badbaadin lahaa. iyadoo kuma ay qancin waxyaabaha uu sheegayo. haddaba markii la isku fahmada haysto waxa uu sheegay in uu sida uu jecel yahay uu u dabaro xaaladda uu hadda ku sugan yahay. sarkaalkii waxa uu ku soo dhacay fikir ah inuu dadka dhammaantoodba kaxeeyo geeyana goobta imanayeen gargaar degdeg ah, xabaduna ay meel halisa kaga dhacday. sarkaalkii ciidanku waxa uu ku qabanayaa qoriga labadii nin ee soo hadhay, waxaana uu weydiinayaa ninka basaaska ee soo hadhay iyo weliba madaxweynaha dalka inaan ku dhalay hadda waxa uu u sheegayaa warbixinta saxda ah isagoo yidhi waxaan kuu sheegayaa warbixinta saxda ah waxaana madaxweyne dalkan ka arriminaya inankiisii. ciidamada maleeshiyaadku qofka ay daba socdaan ay rabaan inay dilaan waa aniga. hadda waxaan doonayaa inaan naftayda meel amniga geeyo, balse iyagu way igu daba raad joogaan iyagoo adeegsanaya nooc kasta oo khidadeed oo la igu dili lahaa. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi ninka ila socda waa istaafkii aniga amnigayga sugayay, anna waxaanay madaxweynihii dalka ka arrimaynay wiilkiisii, sidaas ayaanu labadeedan ku wada soconnaa, amnigaygana uu ku sugayaa. hadda waxa uu ku qancay sarkaalkii ciidamada Mareykanka watay inuu ninkanu yahay nin saafi ah. waxa uu kale sarkaalku weydiiyay dadkii goobta ku sugnaa cid kale ama qof kale oo mobile sita. waxa isdugsanaya ama isweheshanaya ciidamada Mareykanka oo wada dhaawaca. xuduudka wuxuu u jiraa wax aad u yar haddii ay u yaacaan, balse Janiska inta leeg lama siin. si kastaba ahaatee ciidamada Mareykanku ismay dhiibin. hadda waxay sheeda ka daawanaysaa liina. hadda waxaa lasoo badbaadiyay sarkaalkii badbaadiyay ciidamadii ama liina iyo shacabkii la socday asxaabteeda ahaa. waxaa hadda lagu soo dhaweynayaa xuduudka dalka Rwanda, waxaana hadda ciidamada Mareykanku ay garab socdaan oo ay caawinayaan sarkaalkoodii oo dhaawac aad u daran uu soo gaaray. asxaabtayda aad ku jecel meel kasta dunida kaga sugantay mar kale waan idin salaamaya. haddii aad nagu cusubtahay kanaalka subscribe saaro, rukumo oo gomboleelka furo, like-na nagu dhiirigeliya, share-na kula wadaaga asxaabtaada. waad mahadsantahay. nabadgelyo.